madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay safar dalka dibadiisa isagoo aaday dalka Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa casuumaad ka helay dhigiisa Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyagoo ay ka wada hadli doonaan arrimo xasaasi ah oo quseeya militariga iyo xoojinta xiriirka labada dal. hase ahaatee madaxweynaha ayaa u ambabaxay safarkan xilli dalka uu marayo meel xasaasi ah oo ku jira dagaal ba'an oo wajahaya xaalado adag oo ay ka mid yihiin abaaro iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab oo si laba jibaarmay. Madaxweynaha ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku laalaabanayay deegaanada dhaca Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan kuwaas oo ay ku wajahayeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab dagaal ba'an iyadoo dhinaca kalena ay barbar socdeen duqeymo ay ka fulinayaan beesha caalamka. duqeymahaasi oo lagu beegsanaya kooxaha Al-Shabaab fariisinada ay ku leeyihiin deegaanadaasi. hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa iyaga dhinacooda waxay soo qaadayeen dagaalo ku aadan sidii ay mar kale dib ula wareegi lahaayeen deegaano ay mar hore dawladda federaalka Soomaaliya ka qabsadeen. deegaanka masjidka Cali Guduud ayaa ka mid ah deegaanada 2 sano ka hor laga saaray ururka Al-Shabaab hase ahaatee mar kale dib ula wareegeen iyadoo taasi ay ka dhalatay dhaliilo iyo sidoo kale in madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe haddana ay la wareegaan ururka Al-Shabaab deegaan ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. hase ahaatee madaxweynaha ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu xoojinayay xiriirka ciidamada iyo kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale macawisleyda uu ku boorinayay inay dagaal xoogan la galaan ururka Al-Shabaab kana seegaraan deegaanada ay gacantooda ka hadhay. si kastaba ahaatee madaxweynaha safarka uu aaday dalka Turkiga ayaa dhaliyay su'aalo badan iyadoo dadka falaqeeya siyaasadda ay ku dhaliilayaan madaxweynaha qaabka uu wajahay dagaalka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale istiraatiijiyada dagaalka ee gobolka. hase ahaatee aysan wax weyn laga filaynin dalka Turkiga. dalka Turkiga ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya ee haatan isagoo ugu deeqay diyaarado dagaal iyo sidoo kale deeqo saanad ciidan kuwaas oo ku kaalmeynaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo xoojinaya dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga la socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.